hor inta aan miiska cunto la soo dhigin waxaa jira safar dheer oo indhaha badankoodu arkin. waa safar ka bilaabman dhulka la tacbo, biyaha la maareeyo iyo gacanta beeralayda oo maalin kasta rajada berri ku beeraya inin yar. marka la raadinayo halka ay ka bilaabato nolosha ummad, marar badan jawaabtu waxay ku jirtaa meel aan cod badan lahayn. waxay ku jirtaa dooxooyinka, miyiga iyo dadka dhulka u huray in bulshadu ay hesho cunto. beeralaygu ma aha oo kaliya qof dhul beera, waa qof haya silsiladda nolosha. inkasta oo uu la tacaalayo roobab aanan la hubin, yaraanshiyo la xiriira biyaha, isbeddelka cimilada iyo caqabado badan oo kale, haddana wuxuu sii wadaa tacabkiisa isaga oo rajada berri ku beeraya gacmihiisa. macnaha markaan abuuray, markaan falay beerta, horta marka hore waa la falaya moogtahay. markaan beerta falay ka bacay biyaan ku dii, markaan ku dii iyo biyihii ka baxeen beerta waa makiinay, waxaan ku dhigay waxuu ahay qariyaan abuuray, waa la gacan abuuraya. markii qariya aan abuuray waxaa dhacda qariya inuu ii soo dhashay, aboosta uu noqday, waan falay okay uu ii ahay kanaha. marka wuxuu sameeyey meeshii oo muro bilow oo ka ahay ee xoogaa jirro malabisa liiraa ibtaan. markii ku dhacday waa ka buufi, waa kala tacaalay. markaan ka buufi waxaa dhacday haddana ka bacdi qarihii oo yimid oo soo bislaaday, waxaa dhacay suuq xumaad haddana. suuq xumaadka hadduu dhacay suuqii wax ka joogi wey. codka qofkan muhiimka ah waayo aragnimadiisa iyo caqabadaha uu wajahayo ayaa muddo dheer u baahnaa meel laga maqlo. 10 sano ka hor ayay dhalatay fikrad yar oo lahayd himilo weyn in beeraha Soomaaliya loo sameeyo cod muuqda, in beeralayda la maqlo, isla markaana aqoonta khubarada laga soo dejiyo xarumaha cilmi baarista lana gaarsiiyo qofka gacantiisa ku haya carrada. sidaas ayay ku dhalatay Barbaarta iyo Beeraha. safarkii Barbaarta iyo Beeraha wuxuu ahaa safar lagu raadinayay fahamka dhabta ah ee beeraha Soomaaliya. muddo 10 sano ah waxaan dhex lugaynay beeraha dalka, waxaan la kulannay beeralay, waxaan booqannay suuqyada dalagyada, waxaan dhegaysanay caqabadaha wax soo saarayaasha, waxaan miiska la fariisanay khubaro aqoon iyo waayo aragnimo dheer u leh dhinacyada kala duwan ee beeraha dalka. su'aashii ugu horreysay ee safarkan hagaysay waxay ahayd: yaa dhab ahaan cunto u abuura ummaddan? ma kuwa ku tiirsan biyaha webiyada, mise kuwa rajadoodu ay ku xiran tahay daruuraha cirka? jawaabaha su'aalahaas waxay daaha ka qaadeen xaqiiq muhiim ah in qof kasta oo beeralay ah uu leeyahay door aan la iska indhatiri karin, gaar ahaan beeralayda roobfalatada ah oo ah lafdhabarta wax soo saarka gudaha. waxaan gaarnay beeralayda roobfalatada ah, waxaan la wadaagnay maalmahooda shaqo, waxaan dhegaysanay rajadooda iyo walwalkooda, waxaan ka warrannay halganka ay ugu jiraan in dhulkoodu noqdo il nololeed. markii aan raadinaynay xididada wax soo saarka beeraha Soomaaliya, waxaan u gudubnay meelaha biyuhu nolosha u yihiin, dooxooyinka ay maraan webiyada Shabeelle iyo Jubba. webiyadani ma aha oo keliya biyo socda, waa halboolayaal dhulka soo nooleeya, quudiya bulshada, isla markaana dhisa dhaqaale ku tiirsan beeraha. waxaan ka sheekaynay sida biyuhu u yihiin furaha wax soo saarka, caqabadaha hortaagan waraabka iyo mustaqbalka maaraynta biyaha. wuxuu kaloo ka qayb qaataa ahmiyadda uu leeyahay waraabkan casriga in bacrimintii loogu soo daro tankiga. bacrimintii ayaa tankiga loogu soo daraa. geedkii marka wuxuu qaadanaa biyo iyo wuxuu qaadanaa iyo nafaqo ayuu qaadanaa. webiga Jubba ugu biyo badan marka loo eego webiga Shabeelle. webiga Shabeelle waa biyo yar oo lagu qiyaaso 2.8 ilaa 2.7 bilyan sanadkiiba, taasoo iyada laftirkeeda marka loo eego isticmaalayaasha biyaha kala duwan sida beeraha, xoolaha, dadka, deegaanka iyo warshada oo la sameyn doono. waxaas oo marka loo eegana naftirkiisu marka loo eego biyaha ay yar yihiin. qaar ka mid ah sheekooyinka beeraha Soomaaliya waxay ku qoran yihiin dhulka laftiisa. dooxooyinka Shabeelle, gaar ahaan hareeraha Jowhar, bariisku wuxuu leeyahay sheeko ka weyn dalag kaliya. waa taariikh, dhaqan iyo rajo ku xiran biyaha iyo ciidda. Barbaarta iyo Beeraha waxay kaydisay sheekada bariiska Jowhar laga soo bilaabo taariikhdiisa, waayo aragnimada beeralayda iyo rajada dib loogu soo noolaynayo wax soo saarkiisa. waxaa dhacday in International Rice Research Institute, macadkan caalamiga ee bariiska, International Rice Research Institute, xaruntiisu ay ku taalo Philippines, ee dowladda Soomaaliya xilligaas waxay ka codsatay variety la soo diray. waxaa waddanka si fiican ugu qabsaday 2 variety oo ah IR22 iyo 26. labadaasaa si fiican waddanka ula qabsadeen, IR22 iyo 26. productionkii bariiskana beeralaydii wuu gaaray oo beeralaydii extension loo sameeyey, bariiskii tacabkiisa ay fahmeen.
oo joor bariiskii wuxuu ka noqday meel magaalo caan ku ah ilaa xilligii dowladda burburka ay gaaraysay heer waxaa gaari hataa joor u baxa magaca la yidhahdo xilligaas 1983 joor ama jidda wax soo saar ayaa ka bilowda abuur lagu riday carrada laakiin abuurku ma aha oo keliya iniin waa kayd nololeed waa hanti go'aamisa mustaqbalka wax soo saar dal waxaan iftiiminnay muhiimadda uu abuurku leeyahay ilaalinta noocyada maxalliga ah iyo walaaca sii kordhaya ee ku saabsan lumitaanka awoodeennii abuurka abuurku xaqiiqda marka loo hadlo waxa weeye abuurku waa shay ka qaalisan dahabka iyo diamondka halka la dhigo meel ka adag baa abuurka la dhigaa waayo dahabka lama cuno dahab cuni meesha ku baahi bixi meesha inaad iib geysid weeye laakiin abuurka markaa waad cunaysaa isaga waa beer wuu ku bixi waad cunay abuurku yani wuxuu inaga muhiim inoogu yahay haddii abuurka lagaa weeraro oo abuuran kaagii ahaan lagugu soo daayo abuurkaasi wuxuu imanayaa kaa dalkaagii aan ahayn waxaa laga yaabaa inuu xanuuno badan oo cudurro badan leh inay ku abuuraan oo ay gaarsiiyaan dhirtii kale ama ay carradii soilkii gaarsiiyaan taariikhda Soomaaliya lagama qori karo beeraha oo kaliya lagumana qori karo xoolaha oo kaliya labaduba waa laba tiir oo isku xiran waxaan ka hadalnay caqabadaha wax soo saarka xoolaha xiriirka ka dhaxeeya beeraha iyo xoolaha iyo sida loo dhisi karo nidaam wax soo saar oo aad u hagaagsan 20 sano ugu dambeeyay wadankan dhul-daaqsimeedkii soo burburay wuxuu u baahan yahay marka in dhul-daaqsimeedka dib loo fargareeyo ama loo sameeyo wax loo yaqaan rangeland rehabilitation dib soo noolin in dhulka loo sameeyo dalag kasta oo beeruhu soo saaraan wuxuu leeyahay caqabad u gaar ah mid ka mid ah caqabadaha ugu weyn ee beeralaydu la kulmaan waa aafooyinka cayayaanka iyo cudurrada ku dhaca dhirta kuwaas oo mararka qaar baabi'in kara dadaal bilo badan soo socday waxaan iftiiminnay doorka maaraynta saxda ah ee cayayaanka iyo isticmaalka mas'uuliyadda leh ee sunta beeraha si loo ilaaliyo dalagga caafimaadka bulshada iyo deegaanka runtii oo si sax aan loo adeegsanaynin gaar ahaan haddaan kasoo bilowno hadda maxay qaabka dooska marka la diyaarinayo oo kale waxaa laga yaabaa qofkii khibrad uma haysto sunta ay madalayso kuley afku ku furaya afka markuu ku furo suntaas asaga isla markii ma dilayso laakiin muddo dheer kansar iyo waxyaabahan sheegayna ay ku ridi kartaa sidoo kale dabeesha dhankeeda waqtiga la buufinayo waqtiyada ugu habboon uusan buufinin oo ah dabeeshii cagsigeeda macnaa dabeeshii oo dhankan usan jeedo inuu buufiyo asaga dhibto ama sigaar inuu cabayo ama cunto inuu cunayo waqtigaas gacmihii galoofisa soo xirneen ama dhar aan xirneen sidoo kale maxay ahayd cabirkii oo ziyaado laga dhigayo macnaa sidii saliidii la miisayo oo kale waxyaabahaas oo kale in loo shubo taasna ay keenayso maxay ahayd dhibaato badan mustaqbalka beeraha laguma dhisi karo dadaal gacmeed oo kaliya kordhinta wax soo saarka dhimista kharashaadka iyo fududaynta shaqada beeralayda waxay u baahan yihiin tiknoolajiyad iyo mashiinno casri ah waxaan ka hadalnay fursadaha mashiimaynta beeraha Soomaaliya iyo caqabadaha hortaagan in qalabkani gaaro beeralayda mashiimaynta beeraha ay u leeyihiin beeralayda waxa weeyaan ku horto wuxuu hagaajiyaa ama uu koobaa ama yareeyaa waqtiga hawsha lagu qabanayay oo markii manualka lagu shaqeynayo ama bini'aadamka ay shaqeynayeen waxa ay waqti uga lumayay ama waqti badan ay ka qaadanaysa beerta inay ku diyaariyaan ama shaqadii beerta ay qabtaan marka laga hadlayo mustaqbalka Soomaaliya su'aasha ugu weyn ma aha oo kaliya in cunto la soo saaro balse waa sida loo xaqiijin karo in jiil kasta uu helo cunto ku filan ammaan ah oo joogtana ah barbaarta iyo beeraha waxay ka hadashay muhiimadda sugnaanta cunnada caqabadaha hortaagan wax soo saarka gudaha iyo baahida loo qabo in la xoojiyo awoodda beeralayda Soomaaliyeed 1987 waxaa la yiraahdaa waa sanadkii ugu fiicnaa oo beeraha Soomaaliya ay ku dhawaadeen in inkastoo total food security aan la helin laakiin ay ku dhawaadeen taasna waxaa keenay siyaasad cusub oo markaas dawladda kacaanka ay dejisay siyaasaddaasoo ku salaysnay 7 qodob qodobka ugu horreeya wuxuu ahaa in xoogga la saaro dalagyada oo dadku aad u isticmaalaan oo cuntada ah sida bariiska 7 dalagay ahaayeen bariiska galleyda misigada saliidda sokorta iyo suufka
marka dalagyadaas oo toddobada ah waxay ahaayeen toddobadii dalag oo waddanku aad ugu baahan aadna loogu isticmaalayo waxaa kaloo qodobka kale wuxuu ahaa in xoogga la saaro cilmi baarista iyo fidinta in xoogga la saaro waxaa kaloo ku jiray in beeralayda la siiyo amaahyo la siiyo in xogta beeraha la soo ururiyo si loola socdo wixii dib u dhaca wixii horumar saas loogu socdo waxaa ka mid ah in waxyaabahan beergashiga la yidhahdo inputka oo ah fertilizerka shidaalka abuurkii wixii oo dhan in beeraley walba gobol walba degmadiisa uu ka helo runtiina hay-ada loo sameeyey waxaad ka shaqaynaysay in la diiwaan geliyo waxyaabaha beeraha oo dhulka iyo beeraleyda marka qodobadaas toddobada waxay aasaas u noqdeen in 87dii heer fiican laga gaaro beerihii laga gaaro beer kasta waxay leedahay sheeko ku qoran carradeeda carradu ma aha oo keliya meel abuur lagu rido waa hanti dabiici ah oo go'aamisa tayada mustaqbalka wax soo saarka laakiin sanadihii ugu dambeeyey nabaadguurka carrada xaalufinta dhirta iyo isticmaalka aan habboonayn ee dhulka waxay noqdeen caqabado khatar ku ah beeraha Soomaaliya barbaarta iyo beeraha waxay iftiimisay muhiimadda ilaalinta carrada iyo maaraynta kheyraadka dabiiciga ah si jiilasha dambe ay uga faa'iideystaan carradii haddaan cagafta geliso burburiso iyadoo qallalan roobka dabayla ka horeysa dabayshaas maxay qaadaysaa nafaqadii bay qaadaysaa ayna nafaqadu waa qaybta kore adaa marka inta burburisay waxaad u diyaarsay dabaysha xaalaba markaad falayso yeysan noqonin beertii oo qallala inaad fasho inta badan sheekada beeraha Soomaaliya waxaa dhab ahaan xambaara beeralayda yaryar waa qoysas badan oo ku tiirsan dhul yar qalab kooban iyo dadaal joogto ah inkasta oo ay yihiin lafdhabarta wax soo saarka gudaha haddana waxay wajahayaan caqabado la xiriira helitaanka suuq maalgelin abuur tayo leh iyo adeegyo taageero ah codkooda waayo aragnimadooda iyo baahidooda waxay noqdeen qayb muhiim ah oo ka mid ah safarka barbaarta iyo beeraha ee 10 sano jirsaday laakiin adduunyada maanta markaa fiiriso hay'adda cuntada adduunka waxay xoojinaysaa beeralayda yaryarka ah in la taabageliyo oo wax soo saarkooda la kordhiyo sababta waxa waaye waxa ay soo saaraan waxa loo isticmaalayaa suuqyada gudaha ayaa loo isticmaalayaa oo dadweynihii ku hareereysnaa ayaa ka faa'iideysanaya isla markiiba beeraha Soomaaliya waxay leeyihiin jadwal ay hagaan xilliyada sanadka guga iyo dayrta ma aha oo kaliya xilliyo roobaad waa waqtiyo go'aamiye rajada iyo mustaqbalka qoysas badan xilliyada xagaaga iyo jilaalkana waxay leeyihiin door muhiim ah oo ku saabsan qorsheynta waraabka iyo diyaarinta wax soo saarka soo socda marka beeraha Soomaaliya ta fiirso Soomaaliya ta aan ku noolnahay waxa la soo saaraa inta badan waxa naga beeralayda markay soo saaraan ayaga ku nool deegaanka angalaha tamsaka tamadiga ayaa ku nool horta waxa ay soo saareen ayagna wixii ayaga ka batana suuqeynka sanadihii ugu dambeeyay hal mowduuc ayaa si joogto ah uga dhex muuqday sheekada beeraha Soomaaliya waa isbeddelka cimilada abaaraha soo noqnoqda roobabka isbeddelaya iyo kulaylka sii kordhaya waxay noqdeen caqabado u baahan faham qorshe iyo xal waara barbaarta iyo beeraha waxay la fariisatay khubaro kala duwan si loo fahmo dhibaatada iyo wadooyinka xalkeeda annaga laakiin waxa ugu badan waxa waaye oo isbeddelka cimilada nagu keentay daadad iyo abaar marna abaar ku jirnaa marna daadada ku jirnaa taas marka annaga qayb ka ah oo activity-ga dadka waxa ay sameynayaan qayb ka ah xaalufka dalka laga geystaa qayb ka ah wabigii oo maxaa la yiraahdaa river management ama idaaratul anhaarki oo meesha ka maqan maamulkii oo wabiyada la maamuli lahaa meesha ka maqan oo in laga socdo wabigii jawigiisii wixii dhan meesha waxaas oo dhan marka la isu geeyay marka wixii guudna adduunyada la qabnaa oo isbeddelka cimilada iyo wixii ay keentay ah waxa kaloo ka mid ah habka labaad inay isticmaalaan biyo kaydin oo kaleento in biyo badan beertii aysan ku waraabinin ay biyo yar isticmaalaan gobolada webiga oo maro kaleento xilliyada webiga guro kale waxay sameyn karaan ceelal ka dhex qodan karaan ceelal oo maaragtay aan mitirada aad u badnayn ay awoodaan taas marka waxay u beeqaaminaysaa in ay ku waraabsadaan beertoodii haddii qudaar noqon lahayd iyo haddii dalagyo kale noqon horta maanta qarsoodi maaha saadaasha hawada
ama cimilada nafteeda la socodkeeda waa wax aad loo bartay oo cilmigaas waa cilmi aad iyo aad u baahsan inta la doono baahsan soona shaacbaxay ilaa maanta la joogo in lagu yidhaahdo 3 maalmood oo soo socota waxaa ka di'i doona roob intaasa gaalkacyo jariiban kismaayo baydhabo buulaburte ama xamar ka di'i doona saadaasha hawada maanta awooddaas waa leedahay safarka barbaarta iyo beeraha oo 10 gu jirsaday wuxuu maanta galay marxalad cusub si aqoontan iyo xogtan loo gaarsiiyo dad badan loona helo meel joogto ah oo lagu kaydiyo laguna wadaago arrimaha beeraha waxaa la hirgeliyey website-ka barbaarta iyo beeraha website-kan wuxuu noqonayaa xarun digital ah oo lagu soo bandhigo wararka beeraha cilmi baarisyada aragtiyada khubarada iyo sheekooyinka beeraleyda Soomaaliyeed taasoo ah talaabo kale oo lagu xaqiijinayo in codka beeraha Soomaaliyeed uusan ku ekeen goob ama waqti gaar ah muddo 10 sano ah barbaarta iyo beeraha waxay ahayd safar lagu raadinayay fahamka qotada dheer ee beeraha Soomaaliya safar lagu aruuriyay sheekooyin aqoon iyo waayo aragnimo ka tarjumaysa xaqiiqda nolosha dadka ku xiran dhulka waxaan codsiinay kuwa dhulka la nool waxaan soo bandhignay aragtiyo ka imaanaya khubaro iyo aqoon-yahano waxaan iftiiminay dhammaan dhinacyada kala duwan ee beeraha iyo kaalinta ay ku leeyihiin nolosha dhaqaalaha iyo mustaqbalka bulshada Soomaaliyeed safarkan wuxuu ina baray in beeraha aysan ahayn oo kaliya wax soo saar ay yihiin aqoonsi dhaqan dhaqaale iyo tiirka ugu muhiimsan ee sugaya amniga cuntada dalka maanta barbaarta iyo beeraha waxay galaysaa marxalad cusub iyadoo aqoontii xogtii iyo sheekooyinkii la ururiyey loo bedelayo kayd digital ah oo u furan jiilasha maanta iyo kuwa berri sababtoo ah codka beeruhu ma aha cod xilli gaar ah ku eg waa cod ka soo baxaya carrada ka tarjumaya nolosha ummad una baahan in mar walba la maqlo barbaarta iyo beeraha 10 sano oo codka beeraha ah 10 sano ayaan dhegaysanay dhulka aan qornay sheekooyinka beeraleyda una shaqeynay in beeraha Soomaaliya ay helaan codkooda muuqda